Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Daawadayaal kusoo dhawaada cashirkeena labaad ee aan kaga hadli doono hadduu Ilaahay ka raali noqdo tallaalka loo isticmaalo qaaxada ee carruurta yararka la siiyo markay dhashaan ee loo yaqaano BCG-da. Inta aanan ka hadlin tallaalka BCG-da ee loo isticmaalo cudurka qaaxada, waxaan rabaa bal inaan isla fahanno cudurka qaaxadu waxa uu yahay maadaama aan isweydiinayno oo laga yaabo inaysan qaarkeen garanaynin. Cudurka qaaxada waxa uu yahay ayaan rabnaa inaan ogaano, sida lagu kala qaadana inaan ogaanaan u baahannahay, iyo calaamadaha lagu garan karo shaqsigu markii uu qabo cudurkan loo yaqaano qaaxada ama tiibishada Soomaalida u taqaano. Waxaan diiradda saari doonaa waqtigeena hore oo aan diiradda ku saari doonaa cudurka nafsadiisa waxa uu yahay cudurkan loo yaqaano tiibishada ama qaaxada waxa uu yahay ayaan ka hadli doonaa insha Allah. Slide-keena ugu dambeeyana waxaan kaga hadli doonaa tallaalka loo isticmaalo oo looga hortago cudurkan qaaxada ee la siiyo carruurta halka sano ka yar. Su-aasha aad isweydiinaysid daawade waxay tahay maxaad uga baahan tahay inaad ka ogaatid tiibishada? Waa su-aal aad isweydiinaysid. Su-aashaas waxaa jawaabteeda kaga dhigaynaa slide-kan hadduu Ilaahay ka raali noqdo. Tuberculosis cudurkan loo yaqaano waxaa sababa jeermisyo yaryar kuwaas oo jirkaada soo gala qaasatan qaybta sanbabada. Markii qofku uu hawo qaato ayayna soo galaan oo waxay ka mid tahay tiibishada cudurrada lagu kala qaado hawada oo loo yaqaano airborne disease ayay ka mid tahay. Qaybtan loo yaqaano communicable disease ee cudurrada ka tahay. Communicable disease-na waxay kasii tirsanaysaa oo ay ka gelaysaa bahda loo yaqaano airborne diseases oo lagu kala qaado hawada. Waxaana si kooban loo yaqaanaa TB ayaa loo soo gaabshaa. Tuberculosis ayaa lagu soo gaabshay TB si kooban. Taas ayaa loo yaqaanaa markaas cudurka tiibishada. Jeermiskan cudurka tiibishada keena inta badan waxaa laga helaa sanbabada. Laakiin mararka qaar waxaa ku dhici kartaa tiibishadu qaybo kale oo kamid ah jirka. Laakiin midda muhiimadda leh oo khatarta ah ayaa waxay tan ku dhacda sanbabada oo ah midda la kala qaado oo halista ku fida weliba degdeg ah. Shaqsigu markuu qabo tiibishada cudurkan ah ee ku dhacda qaybta sanbabada ah wuxuu si fudud u gudbi karaa dadka kale ee markaasi u nugul cudurkan inay qaadaan. Tiibishada haddaba sidee ku fidaa? Sidee shaqsi uga soo gudubtaa shaqsi kale uga gudubtaa? Waa inaan ogaanaa. Waa muhiim si aad iskaga ilaalisid oo aad uga hortagto cudurka tiibishada. Sidee kugu soo gudbi kartaa haddaba aad iska ilaalisid? Jeermiskan tiibishada ayaa wuxuu ku soo gudbaa hawada markii shaqsigu cudurkaasi qabaayay oo qufaco ama uu hindhiso ama uu heeso ama markaasi uu qoslo intaba daawada waa lagu kala qaadaa. Tiibishada maadaama ay tahay cudurrada hawada lagu kala qaado ayaa waxay u baahan tahay si qofka afkiisa ay hawa uga soo baxdo oo droplets cudurkii active ah oo cudurkii qaba ay afkiisa uga soo baxaan ayaa waxaa loo baahan yahay qofkii inuu qufaco ayaa loo baahanayaa ama inuu qofkii heeso qaado hawadaas uga soo baxdo ama uu qofkaasi hindhiso oo khatar ah hindhisada mid ugu daran ay tahay ama shaqsigu uu qoslo. Taa ayaa waxay koosgareyn kartaa qofka u nugul inay markaas cudurka u gudbo. Si uu shaqsigu cudurkan tiibishada ah u qaado waa inuu qofkaasi oo la wadaago hawada qofka cudurkani qaba tiibishada ah. Hawada qaab nooc ayuu la wadaagi karaa waa la isweydiinayaa. Wuxuu u la wadaagi karaa hawada inuu la nool yahay ama sariir la jiifto ama guriga wax badan isla joogaan intaba ama inay isla shaqeeyaan ama inay isla ciyaaraan. Saddexdaasba waa saddex muhiim u ah inuu qofkii hawada la wadaago qofkii kale cudurka qabay. Sidaa daraadeed xaddiga waqtiga iyo deegaanka iyo sida shaqsigaas u xanuunsan yahay ayaa waxay ka qayb qaataan inaad cudurkii noqotid mid qaada iyo inaadan qaadin. Intaba way ka qayb qaadan karaan saddexdaasi oo ah waqtiga, xaddiga waqtiga yacni intuu la yahay aad isla joogteen qofkaas, deegaanka isku nooleedeen iyo sida shaqsigaas u xanuunsan yahay ayaa waxay go'aaminayaan inaad cudurkaasi qaado iyo inaadan qaadin. Haddaba waxaan soo aragnay isla soo fahanay in hawada lagu kala qaado cudurkani ayadoo sawir noo ah ayaa halkan nooga muuqata. Shaqsigii kiiska ahay ee qabay cudurkani oo TB infected ahay waa kana sanbabadiisii dabcan waad u jeedaa. Sanbabkani ayaa wuxuu noqday mid markaas infected ah oo cudurkii qaba.
sida daraadeed qofkii wuu hindhisay ama wuu qufacay ama wuu qoslay saan soo sheegnaba ama wuu heesay. Afkiisa ayaa waxaa kasoo baxay droplets. Dhibcahaas ayaa waxaa loo yaqaanaa droplets. Waa candhuuftiisii afka kasoo baxday, taas oo markaas si sida jeermiskii bacteriadii loo yaqaanay tuberculosis oo mycobacterium tuberculosis loo yaqaanay ayay xambaarsiin candhuuftani. Waxay si toos afka u galaysaa ama sanka galaysaa shaqsiga u nuglaay. Waa kana qofkii u nuglaay sanbadiisina hadda waa nadiif, laakiin markii xadkii loogu talagalay uu gaaro ee jeermiskani oo intii loogu talagalay cudur ku sababi karta ay gasho hawo mareenkiisa, asna sidaan oo kale ayuu markaasi ka noqonayaa feeraha. taasna iyadoo sawir ayaan ku muujinay. Waxaan rabnaa markiina isla ogaano maadaama asla qeexanay tiibishada waxa ay tahay iyo markaasi sida ay ku fido. Waxaan rabnaa inaan ugu dambeyntii ogaano calaamadaha lagu garan karo, maadaama muhiimadeenu ay tahay ka hortag aan ka hadlayno oo aanu ka hadlaynin treatment oo aan daaweyneynin oo cudurkan hadda daawadiisa diiradda saareynin. Waxaan soo ogaanay waxa uu yahay tiibisho, waxaan kaloo ogaanay sida uu ku fido, waxaan kaloo ogaanaynaa isla kan ku garanaynaa calaamadaha lagu garan karo oo muhiim ah qofkii inuu fahmo. Calaamadaha lagu garan karo tiibishada ayaa waxay yihiin qufac 2 ilaa 3 isbuuc ama in ka badan socda qofka oo iska qufacay. Waxaa kaloo lagu garan karaa qufac dhiig la socdo, qofkii inuu markuu qufaco xaaqadiisa ay soo raacdo dhiig. Waxaa kaloo lagu garan karaa qofkii inuu tiibisho qabo. Calaamadaha waxaa ka mid noqonaya xabadka inuu qofkii xanuun uu ka dareemo dhanka xabadka. Waxaa kaloo ka mid ah qofkii inay qandho qabato iyo inuu dhaxamado jareeyo ayaa ka mid ah markaasi. Calaamadaha lagu garan karo oo mid badanaa aadka lagu garto waxa waaye inuu habeenkii dhido shaqsiga qaba cudurkan tiibishada habeenkii inuu dhido ama yarada ama weynaado habeenkii inuu dhido ayaa lagu gartaa. Sidoo kale waxaa lagu garan karaa waxa qofkii inuu tabar darri oo dareemo iyo daal intaba uu dareemayaa markaasi uu tabar dareemo uu daalayaa. Calaamada kale lagu garan karo waxa waaye inuu qofkiisa miisaankiisa hoos u dhaco, miisaankiisa inuu lumo, inuu ka soo dhaco 70 laga yaabo uu 60 oo imaado dabcan oo miisaankiisa hoos mar walba sii socdo sii xumaado deterioration oo sameeyo. Calaamada ugu dambeysa ee inta noogu qoran waxa weeyaan inuu qofkii cuntadiisii ama baahida cuntada u qabay ay yaraato ama ay totally meesha ka baxdaba oo qofkii cuntadii uu ka soo horjeestaba ama ay yaraato ama uu ka soo horjeesto. Tan calaamadahan ugu badani keenta waa mid sababaha. Calaamado ka duwanna way yeelan karaan tiibishada qaybaha kale mid ku dhacda way ka calaamad duwanaan kartaa kuwa ka midaysan yihiin inta ay ku jiri karaan. Waxaan markaasi halkaas kaga soo gudbinay tiibishada waxa ay tahay isla soo faahfaahina iyadoo waxay tahay iyo sida loo kala qaado iyo calaamadaha lagu garan karo shaqsiga qababa. Waxaan isla arkaan insha Allah ugu dambeeya aan kaga hadli doonaa tallaalka la siiyo canuga yar ee 1 sano ka yar. Inuu 1 sano ka yar yahay ayaa shuruuda. Tallaalka canuga 1 sano ka yar la siiyo ee looga hortago tiibishada ee loo yaqaano BCG oo laga soo gaabshay 3 nin ee kor ka muuqata magacyadoodii oo loo yaqaano Basile, Calmette, Gorin oo ah markaasi 3 nin ee tallaalkan loo yaqaano BCG soo sameysay cilmi baarista oo soo saartay. Marka waxaa rabta inaad ogaatid waxaan ka hadlay tallaalka ma cirbada mase waa kaniini iyo wax la mid ah. Tallaalkan loo qaato qaaxada koo waa cirbad. Goorma la qaataa ayaad isweydiinaysaa. Wax intee laga qaataa ayaad isweydiinaysaa. Jirka qaybta laga qaataa ayaad isweydiin kartaa markaasi dabcan. Koo tallaalkan waxaa la qaataa canuga markuu dhashaba waa la qaataa. Koo canuga marka uu dhasho waa la qaataa inta lagu jiro delivery roomka ayaa la sii karaa marka lagu saarno la sii karaa. Ama waxaa siinaysaa waqtiga ugu horeeya ee ugu macquulsan ilaa 1 sano intuu jiro oo sanadka koowaad uu ku guda jiro ayaad sii kartaa. Haddii canugu uu ilaa 1 bil jiro 1 bil markuu dhashay ilaa 1 bil haduu jiro waxaad siinaysaa cirbad qaadkeedu uu yahay 0.05 ml. Haddii uu halkaas bil dhaafana waxaad siinaysaa 0.1 ml ayaad siinaysaa. Wuxuu ka qaadanayaa maqaarka ayaa ka siinaysaa waa intradermal root dabcan maqaarka ayuu ka qaadanayaa. Maqaarka ka qaatay maqaarku uu yahay ka qaybtay wuxuu ka qaadanayaa gacanta bidix qaybteeda sare ayuu ka qaadanayaa muruqa loo yaqaano deltoid muscle maqaarka sare ka saaran ayuu ka qaadan doonaa hadduu Ilaahay ka raali noqdo. Maqaarka ayaa la rabaa in daawada lagu shubo. Maqaarkaas marka lagu shubanayo calaamad ka soo baxda cad dabcan sida halkan kaga jeedid canug yaray ee gacanta bidix laga siinayo muruqa deltoid muscle loo yaqaano maqaarkiisa qaybta sare
cirbada waxaa la rabaa inaad maqaar ka gelisid oo aysan u gudbin muruqa una gudbin maxaa ku dhahay baruurta. Sida awgeed waxaa la rabaa markaad daawada ku shubtid inay meeshu saas usoo cadaato boogtaas ay yeelato, boogtaas oo maqaarkaas ka dhici doono una noqon doonto calaamad lagu garan doono canugani in lasoo siiyey tallaalka qaaxada. Tallaalkii qaaxada waa kan halka kan yaala, waa tallaal kaliya dhaladiisu madowdahay, haddana wuxuu wataa tallaalkani biyihii lagu qasi lahay. Dhaladan waxaa ku jira ilaa iyo 20 doos. 20kaas doos waxaa la siiyaa 20 canug ayaa la siiyaa, waxaana mid walba ay tahay 0.05 ml ayaa la siinayaa. Halkaas ayaan daawadayaal ka gudbinaa tallaalkii la siinayay caruurta yarka ee qaaxada markaasi laga siinayay. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.